السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب تشرفت لي أكو حرن جنال كينا بهلياه أمدا سود هذا وحلقتي ستحات تحنينا كون هبين يو هبين هدي أي تامر كاي كوات أصوب وقني سجنال كينا فضلا تاو سبسكرايب كم بلاك أنا ركومتي نقطة تاودا أجوريو لايك سار سينا شير جري أو لو ذاك أصحاب تاودا في أي كل فايدستان كنا سوقر فكر كيف عن قيب تهوس أي كومنتي هذا أنا كان سأي نقطة ديري جرين ما السنة إمن كان داوشة وعن هبين كي كوات شيكدي تاجركي iyo cifriidkii habeenkii koowaad Shahrazad waxay sheekadii ku bilowday waxa ay soo gaaray boqor inuu jiro nin taajir ahaa oo xoolo badan iyo caruur lahaa wuxuuna ahaa nin aamin ah sida darteed bay dadka xoolaha ugu dhiiban jireen maalintii dambe ayuu ninkii safar galay wuxuu socdaba markii dambe wuxuu harsaday geed siduu ugu nasto cabaar markii geedkii fadhiyay ayuu kolay u watay kala soo baxay xoogaa timir ah asigoo bilaabay inuu cuno wuxuu timirta lafteeda ku tuuray meel u dhow wax yar kadib waxa agtiisa ka kacay boor aad u weyn hadduu sii fiiriyay waaba cifriid aad u weyn oo gacanta ku sitay qara weyn aadna u afbadan cifriidkii sidii uu u soo socday wuxuu kor yimid ninkii taajirka ahaa wuxuuna ku yidhi waan ku dilayaa sidaad wiilkayga u dishay markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi sidaan wiilkaaga ku dili maba arkine cifriidkii wuxuu yidhi adiga markaad timirta cunaysay laftii aad tuurtay waxay wadnaha ugu dhacday wiilkayga oo se goobtii ku dhintay sidaas darteed qisaas ahaan ayaan kuu dilayaa markaas ayuu taajirkii yidhi aniga kama warqabin in wiilkaaga meesha joogay ee iska kaycafi hase yeeshee jinnigii waa diiday wuxuuna ku adkaystay in wiilkiisa uga qisaasi doono markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi cirfiid yahow aniga waxaan gacanta ku hayaa xoolo badan oo ay dad leeyihiin kuwaas oo ammaano ahaan igu dhiibtay waxaan leeyahay xaas iyo caruur ee ifasax si aan qof kasta xaqiisa usoo siiyo waxaana kuu ballan qaadayaa markaan qof kasta xaqiisa soo siiyo inaan kuu soo noqon doono si aad wiilkaaga igu qisaasto hadalkaygana Allah ayaa wakiiliga markaas ayuu jinnigii ka ogolaaday sidii ayuu ninkii ku soo baxay wuxuuna yimid magaaladii uu degnaa asigoo isku wacay dhammaan dadkii iyo ehelkii si uu qof kasta u siiyo xaqiisa markuu dhammaan dadka xoolahooda siiyey ayuu u sheegay sidee wax u jiraan iyo xaalka halkuu marayo markaas ayay dhammaan qoyskiisa iyo ehelkiisa wada ooyeen iyagoo sagootinayo aadna ugu xun siday wax u dhaceen ninkii maadaama uu ballan qaaday si uu ballantii u oofiyo markuu qof kasta xaqiisa siiyey ayuu soo baxay asigoo soo aaday halkii uu jinniga kula balansanaa wuxuu socdaba asigoo karfantiisa wato markuu imaaday geedka hoostiisa ayuu iska fariistay wuuna iska ooyey xoogaa kadib asigoo ooynayo ayaa waxaa meesha soo maray oday wata deero wuu salaamay ninkii wuuna waraystay wuxuuna ku yidhi maxaa keligaa halkan oo ah baalogaleen jinniyada ku nool yihiin ku fariistay oo aadna u ooynaysaa ninkii taajirka ahaa ayaa ugu sheekeeyey siday wax u dhaceen markaas ayuu odaygii go'aansaday inuusan ka tegin ilaa uu ka ogaado sheekadan halka ay ku dhammaan doonto iyagoo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa yimid oo waddadii soo maray nin labo ay wata iswaraysi kadib ayay waxay u sheegeen siday wax u jiraan markaas ayuu asna go'aansaday inuusan meeshii ka tegin oo qisada dhammaadkeeda ogaado iyagoo sidii meeshii usii fadhiya ayaa haddana waxaa jidkii soo maray nin baqal wata iswaraysi kadib markay u xog warmeen ayuu isna go'aansaday inuu sheekada dhammaadkeeda ogaado afartoodii oo meesha sii fadhiya ayaa waxaa u yimid cirfiidkii oo seeftii qarada weyneed wata wuxuuna soo qabsaday ninkii taajirka ahaa si uu wiilkiisa ugu qisaaso markaas ayaa waxaa hadlay odaygii deerada watay wuxuuna yidhi jinniyahow taajkii boqoradahow haddii aan kaga sheekeeyo sheekadana dhex marta aniga iyo deeradan oo aad ka hesho ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel ma ii hibeynaysaa markaas ayuu cirfiidkii yidhi haddii ay cajibiso haa waan ku hibeynayaa markaas ayuu odaygii sheekada ku bilaabay sidaan deeradan aad u jeedo waa xaaskayga ahna in adeertay iyagoo yar ayaan guursaday muddo markaan isqabnay oo waxna ay dhali weysay ayaan waxaan guursaday jaariyad waxayna ii dhashay wiil aad u qurux badan wejigiisa u ifayo sidii dayax 15 oo kale ah waxba yaanan warka kugu daalin maalintii dambe ayaa safar aaday markaan baxay ayay naagteeda oo sixirka wax ka taqaanay sixirtay wiilkayga iyo hooyadiisba iyadoo ka dhigatay lo iyo dibi kadib waxay u dhiibtay ninkii xoolaha ay qaabilsanaa markaan muddo kadib safarkii ka soo laabtay oo aan reerkii imid ayay naagtii ii sheegtay in jaariyadii dhimatay wiilkaygana la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay aniga arrintaas aad ayaan ugu murugooday
maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in la gaaro ciidii udxiyada. anna si aan udxiyo u qalo ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ayaa waxaan ku idhi lo aad u buuran ii soo qabo. markaas ayuu ii soo qabtay lo'dii jaariyada ahayd. markii la ii keenay ayay rafatay oo oysay. anigoo yaaban ayaan qalay, laakiin waxba way ka soo bixi weeyeen. keliya waxay noqotay lafo iyo maqaar. aniga arrintaas aad ayaan ula yaabanaa. markaas ayaa ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ku yidhi ii keen dibi, maadaama lo'dii hore laga waayay dibi. balse haddana wuxuu ii keenay wiilkayga dibiga ahaa. marka la ii keenay ayuu asna ooyey oo raftay. inta ka yaabay ayaan ku dhahay war iga wad dibigan ee ii keen mid kale. markaas ayaa mid kale la ii keenay oo qalay. laakiin waxaad ogaataa inta waxaas dhandhacayaan naagtayda weyna daawanaysaa. markii sheekada halkaas marayso ayay Shahrazad ogaatay in subaxii la gaaray. markaas ayay sheekadii iyo hadalkii u badnaana joojisay. markaas ayay walaasheeda ka yareed ee Dunyazaad tiri maxaa ka macaan badan abaayo sheekadan, waxaan jeclaan lahaa inaad noo dhamaystirto. markaas ayay Shahrazad tiri haddii boqorka ii ogolaado inaan noolaado sheekadan waa idin dhamaystiri doonaa habeen dambe. sidoo kale waxaa idin sheegi doonaa mid ka sii fiican. markaas ayuu boqor Shahriyaar is yidhi waa sheeko xiiso leh ee ha dilin ilaa ay sheekada ka dhamayso. sidii ayuu go'aansaday inuusan dilin ilaa ay sheekada ka dhamayso. subaxii markii la gaaray waxaa yimid wasiirkii gabadhii dhalay oo karsanteedii wada aadna u murugaysan. balse markuu ogaaday in gabadhiisa nooshahay wuu la yaabay, aadna wuu u farxay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. inta aan ku kulmi doono qaybta xigta waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmat